barnaamijkeena fiidnimo caawa qodobada aad ku maqli doonto waxaa ka mid ah Israa'iil oo muuqata inay madaxa isu gelisay Somalida gudaha magaalada London waxaa isku Dhex-Eryanaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadata calanka Somaliland iyo qaar wata calanka Somalida waxaanu isla eegi doonaa dhacdadan oo ku tusaysa xaaladan hadda soo cusboonaatay halista ay ku leedahay dadka Soomaalida guud ahaan qodobada sidoo kale aan isla eegi doona iyana waxaa ka mid ah madaxweynaha Eritira Wawareey oo si yaab leh uga hadlay aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland wuxuuna sheegay hadda geeska Afrika inuu gubanayo oo ay xaalad halis ah soo socoto iyana macluumaad yaab leh ayaan idinkaga diyaariyay qodobada aan sidoo kale isla eegi doona iyana waxaa ka mid ah mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iscasilay waa wasiir Cusmaan Dube oo hore wasiir u ahaa laakiin hadda xildhibaan ah oo xildhibaanadii iska casilay laakiin wuxuu sheegay hadal mar kale u muuqdo in uu doonayo xitaa Puntland in uu ka dhex abuuray iyo Soomaalida inteeda kale xaalad kale waxaan idin diyaariyay hadalka Dube uu sheegay waxa ka runa iyo waxa ka beena macluumaad iyo cadaymo cad ayaan idinkaga diyaarinay qodobada sidoo kale qaybta ugu dambaysa barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay talaabada ay qaaday Israa'iil iyo hadalkiisa oo ay warbaahinta si weyn caawa ilaa iyo maanta u hadalhayso waxa dadka iyana arintan ka hadlay kamida qaar kamida salaadiinta iyo odayaasha ka soo jeeda Somaliland oo uu kamid yahay ninka maalmaha la soo dhaafay sida yaab kale u hadlayay waa boqor Burmadoowe iyadoo faahfaahsan ayaad maqli doontaa qodobada iyo kuwa kale Israa'iil ayaa u muuqata inay ku guuleystay talaabo dad badan ay saadaalinayeen taas oo ah inay doonayso inay xaalad ka dhex abuurto gudaha Soomaaliya magaalada London waxa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan kadib maanta markii ay isku Dhex-Eryadeen iskuna dhex dagaaleen dhalinyaro Soomaali ah oo qaar ay wataan calanka Soomaalida qaarna ay wataan calanka Somaliland dhalinyarada calanka Soomaalida wadatay ay dhalinyaro reer Somaliland ah dhagaxayeen iyadoo la arkay in la hareereeyay dhalinyaradii calanka buluuga ah wadatay halka qaarka calanka Somaliland watayna ay qaar kamid ku dhawaaqayeen qabta oo dila taas oo ku tusaysa mar kale dad isku diina oo walaalaha isku af ah in ay hadda cuqdad weyn iyo dhibaato weyn soo kala dhexgalayso iyadoo dadku ay yihiin dad xidid iyo xigaalo ah haddana waxay u muuqataa cuqdada dhexdooda la dhigaya iyo xaaladda la abuuraya inay tahay xaalad sii fogeynayso Soomaalida meesha ay isu joogaan oo aad meel durugsan u kala geynayso waxaan rabaa marka hore intaan faahfaahinta u galin sakana yaraan muuqaalkan ila aragtaan ma ahan muuqaal sahlan waxa uu dirayaa fariin adag goobta la isku haysta ma ahan Soomaaliya waxa la isku haystaa dal shisheeye waxa is haysta Soomaali waxay isku haystaan inay cadow isku yihiin iyagoo iloobeynay ugu yaraan waxa ugu weyn ee ka dhaxaya ay tahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah bal ila daawa dhacdadan yaab kale waaye sida aad maqlaysaan kuwaasi waa dhalinyaro isu hanjabaya is-eryanaya is-dhibaataynaya dalalka ay joogaan gudaheeda dambi ayay ku galayaan oo qoysaskooda dhibaato ayay gaarsinayaan dadkoodina cuqdad ayay kala dhex dhigayaan tani waa xiisad ay abuurtay ma ahan xiisad Soomaali dhexdeeda ka dhalatay dowladaha shisheeye ee nidaamyo ka baxsanaya waxaan abuuraya xitaa dowladaha ka falcelinaya xaaladda maanta Soomaalida ka dhex taagan waxa ay u kala safayeen kuwa Somaliland la safan iyo kuwa la safan Soomaalida inteeda kale waa cuqdad iyo halis balan qodobka labaad toos ugu galo madaxweynaha dalka Eritira Wawareey ayaa kamid ah dadka ka hadlay aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland laakiin sida uga hadlay waa si yaab leh Wawareey waxa uu yiri
tallaabada Israa'iil ay qaaday ma ahan buu yiri mid la sahashan karo waa arrin gobolka oo dhan khatar weyn ka abuurayso waa in si adag wax looga qabtaa siyaas afawarki ma ahan in uu Soomaalida koonfurta taageersan yahay oo uu Soomaalida waqooyiga ama Somaliland uu ka soo horjeedo laakiin waxa uu eeganayaa dantiisa isagu wuxuu la dagaalsan yahay Ethiopia waxay xiriir la leedahay Israa'iil meeshaas ayuu Netanyahu iyo kooxdiisa kala dagaashay ma aan kooxda Muqdisho fadhisa inuu la jiro ama dawladda Soomaaliya inuu la jiro mana ahan kooxda Hargeysa inuu ka soo horjeedo Somaliland uu la dagaalsan yahay waa sida Israa'iil aysan Somaliland si gaar ah u jeclayn ilaan isku diin ma ahan isku danna ma ahan iyadu waxa ay rabtaa in ay Soomaaliya saameyn ku yeelato si ay laba qoloba xal ugu hesho qolada koowaad waa kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen oo isku hayaan baabu mandab oo cunaqabateen loogu sameeyay Israa'iil isla markaana duqeyn gantaalo ku garaacdo Tel Aviv oo ay adagtahay Israa'iil inay toos u soo gaarto sida Suuriya iyo Falastiin iyo Lebanon ay u soo gaari karayso uma soo gaari karta Yemen qolada labaad oo Israa'iil rabta xal inay uga hesho iyadoo markii rabta inay u marto Soomaalida waxa ay tahay Turkiga waxay aad uga careysan tahay Israa'iil xiriirka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga waliba Israa'iil waxay aad uga carootay oo wararku ay sheegayaan in dawladda dhexe Soomaaliya ay kala hadashay in la joojiyo satellite-ka hawada Soomaaliya ee dhulka Soomaalida laga dirayo ee la isticmaalayo Turkida ay isticmaalayaan bayska Soomaalida arrintaas Israa'iil waxay u aragtaa arrin qarankeeda waxay iyada ugu yeerto iyo amnigeeda halis ku ah sida darteed dawladda Soomaaliya ayay u soo jeedisay in Turkida laga diido arrinta markii arrinta la isku mari waayay oo dhowr jeer dawladda Soomaaliya iyo ka wada hadleen Israa'iil waxay go'aansatay in ay Israa'iil iyana tallaabo qaado oo taa oo ah in ay dawladda Soomaaliya meesha ay ka jilcan tahay ay ka xanuujiso iyo guud ahaan Soomaalida si lamida siyaas afawarki ma ahan nin Soomaaliya si gaar ah u jecel waxay farakul isku hayaan oo ay dekad iyo bad wax walba isku hayaan Ethiopia waxay si gaar ah maalmihii la soo dhaafay sanad bilihii u dambeeyay ishayeen Abiy Ahmed oo nin aad u damac badan haddaba dhinacyada dadka Soomaalida isku dirayo ama dawladaha ku lug leh iyo kooxaha ma ahan kuwa dan gaar ah u wado dhammaan Soomaalida waxaase cajiiba dad Soomaali ah oo Soomaalida isku dirayo oo madaxa isu gelinayo oo aad arkayso meeshii xitaa ay ka shaqayn lahaayeen danaha siyaasadda waxa ay ka shaqaynayaan dad muslimiin ah cuqdad inay si kala dhex gasho colaadu ay sii hurto xaaladu ay adkaato intaana qodobada intooda kala u galin balaan idinla wadaago wasiir xildhibaan Cusmaan Dube oo ka hadlay in dawladda Soomaaliya darteed uu isku casilay cadaalad darro u dareemay Dube waxa ay sheegayaan dadka arrimahan ka faaloodo inuu ku soo aadiyay is-casilaadiisa xilli yaab leh taasoo ah markii ay Somaliland sheegtay in Israa'iil ay aqoonsatay Netanyahuna uu la soo xiriiray Ciro isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay maalin kadib inuu xildhibaannimadii ka tagay waa nin wasiir ka soo noqday dawladda dhexe waa nin xildhibaan dhowr jeer noqday waliba kuwa ugu magac dheer ka mid ahaa ma ahan kaligiis kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka ee madaxweynaha Soomaaliya uu ka qudbeeyay qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ayaa la sheegay inay ka maqnaayeen waxa xitaa la sheegay madaxa aqalka sare in uu ka maqnaa kulankii ugu dambeeyay waxa sidoo kale wararku ay sheegayaan in ay jiraan xildhibaano qoraallo soo qoray markii dambana tirtiray laakiin qaladka ay sameynayaan xildhibaanadaas ka tirsan dawladda dhexe iyo kuwa ka tagayo iyo xitaa wasiiradii hore uga soo mid noqday dawladda dhexe Somaliland ka soo jeeday kaligood qaladka ma lahan xitaa Puntland xitaa koonfurta Soomaaliya ee Muqdisho ilaa iyo Baydhabo ee meel walba waxa jira kuwa ku xadgudbay nidaamka dadka Soomaaliyeed iyo sharciga dawladda dhexe iyo dhammaan dastuurka ay sheegteen oo dhan sharcigaas adduunyada marka lagu xadgudbo waxa loo yaqaanaa treason ayuu ka mid yahay waa khiyaano qaran oo dadku waa la soo xiraa ama waa la xukumaa xitaa iyagoo maqan waxaase cajiiba maamul goboleedyadii qaar ka mid ah inaysan wali iyaga laftirkooda madaxdooda aysan hadlin aysan cambaaraynin gaar ahaan ilaa hadda
cabdullaahi saciid deni wax wara lagama hayo, axmed madoobe kama hadlin hadalkii netanyahu. dhinaca kale waxaad garanaysaa oo aad ogaanaysaa wasiir juxa oo ka mid ah wasiirada dowladda federaalka soo maray haddana wasiir Puntland ayaa waxa uu soo qoray isla markii netanyahu iyo Cira ay wada hadleen inuu amaanay Somaliland oo ku sheegay in muddo adkaysteen Puntland sidaas oo kale looga baahan yahay, macnaheeduna ay tahay Puntland inay go'do. hadalladan oo dhan waxa ku soo muuqanaya hadalladii uu waqti hore iyagoo nool ay jeediyeen Sheekh Boqolsoon iyo Sheekh Maxamed Rashaad oo ahayd Soomaalida in deegaano iyo tuulooyin loo qaybin doono, ugu dambeyn iyaga la isku diri doono oo ay isdagaali doonaan dowlado go'an oo isku af ah isku dad ah, laakiin iyaga cadowga ugu weyn isku noqon doono. shaki kuma jiro qof kastoo Soomaali oo damiir leh in maanta taa ay u muuqato. haddaba muxuu yahay wasiir Dube hadalka uu ku hadlay iscasilaadiisa isagoo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida? waxa uu sheegay inuu ka carooday dowladda Soomaaliya oo safiiradii ugu badnayd u dirtay dibadda, laakiin Puntland aan balasiininba safiiro muhiim ah. dabcan dadka arrimahan ka hadla waxay sheegeen inay macquul tahay safiiro badan ee helin Puntland dadka ka soo jeedo, laakiin annagu waxaanu haynaa macluumaad aynu soo aruurinay safiirada ka soo jeeda deegaan ahaan Puntland sida soo socoto. safiirka Scandinavia, Sweden, Norway iyo Finland wuxuu ka soo jeedaa Puntland, waxaana qabiil ahaan la sheegaa inuu yahay Ortable. safiirka Oman waa Carab Saalax, safiirka UK waa Lelkase, safiirka Masar waa Majeerteen, safiirka Poland waa Majeerteen, safiirka Germany waa Majeerteen. maxay tahay marka ujeedada uu sidaa u leeyahay Dube, xildhibaan Dube? wuxuu rabaa in dhaawaca uu geysanayo kaliya aysan ku ekaanin isaga iyo Somaliland, xitaa Puntland iyo koonfurta Soomaalida inteeda kale inuu madaxa isku sii geliyo ayuu rabaa. laakiin maxaa laga samaynayaa qofka noocaas oo kale ah? xitaa haddaana markaa la qaban karin shuruucda dowladaha adduunku waxay dhigaan qofka in lagu xukumo in uu galay dembi wadan, khiyaano qaran in uu galay. qodobka meesha ayaynu ku dhaafaynaa. waxaa inoo soo socdo macluumaad cajiiba oo ku saabsan warbaahinta caalamka, faahfaahino iyo macluumaad ay ka qoreen xaaladan cusub ee maanta iyo shalay inta ugu badan laga hadlayo. akhbaar ayaan idinkaga hayaa iyo hadalka boqor buur madoobe oo ku tusaysa aafada iyo musiibada uu xambaarsan yahay. marka hore si aynu ku yaraa kana walaalaha qiimiga leh, buur madoobe oo ka mid ah boqorada salaadiinta iyo odayaasha Somaliland ka soo jeedo oo xitaa dad Somaliland ka soo jeeda aad u dhaliileen bilihii la soo dhaafay sida uu hadlayay akhyaarnimada ka baxsan iyo hadallada afxumada afkiisa ka soo baxaya, ayaa wuxuu mar kale aad u aflagaadeeyay ummadda Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale isticmaalay hadallo iyo warar yaab leh oo ay ka mid tahay in uu sheegay hadal cajiiba oo uu leeyahay magaalooyinkeena Hargeysa, Boorame, Burco iyo kuwa kaleba waxaan u bixin doonaa buu yiri Tel Aviv, Jerusalem iyo magacyo kale oo ay leeyihiin magaalooyinka Israa'iil ay maamusho. hadalkan iyo hadallada la midka ah ayaa lagu tilmaamay inay tahay kuwa musiibo ah oo muujinaya sida Soomaalida meel daran loo gaarsiiyay, xaaladuna ay u liidato. ma ahan markii ugu horeysay boqor buur madoobe iyo cid la mid ah hadallada noocan oo kale ay ku hadlayaan, laakiin waxaa la yaab leh maxaa isu keenayo in nacayb iyo cadowtinimo qalbiga laga muujiyo, afkana laga sheego, iyadoo la soo dhaweysanaya Israa'iil, Soomaalida inteeda kale la fogeynayo, islaamnimadii dhaqankiina la ilaabayo. laakiin waxaa arrintan aad uga dhiidhiyay oo diidan qaar badan oo dadka reer Somaliland ah oo ay ku jiraan culimo, akhyaar iyo aqoon-yahano. si kastaba ha noqotee, waxa hadda socda ayaa u muuqda inay tahay arrin dhalin karaysa aafa halis ah. Israa'iil iyadu waxay u muuqataa inay gaartay hadaf weyn, kaas oo ah inay ku guuleystay in koox Soomaalida ka mid ah haba yaraadaane ay soo jiidatay oo calanka Israa'iil maanta ay ku faanayaan, iyagoo markii hore aad loogu cambaareynayay xadgudubka iyo dambiyada iyo xasuuqa lagu eedeynayay inay ka galeen gudaha Gaza. walaalaha saaxiibada qiimiga leh barnaamijkii fiidnimo oo aad kala socoteen Somali Media
caawa intaa ayaynu ku soo xiraynaa intaynu ka bixin bal aan dul marno warbaahinta Al Jazeera, BBC, CNN, TRT iyo kuwa kale dhammaan waxa headline-ka u haysto ama warmadaxoodkooda ah inay aad u falanqaynayaan xaaladan tallaabada Israa'iil ay qaaday iyagoo si gaar ah ku tilmaamaya tallaabada Israa'iil ay qaaday inaysan ahayn mid si gaar ah ay Somaliland garab ugu siinayso laakiin dhammaan ay falanqeeyaashu tilmaamayaan in Israa'iil ay tahay ujeedo weyn oo ay damacsan tahay taas oo sidii bilowgii aan sheegnay lagu soo koobay xiisada kala dhaxaya Turkiga iyo walwalka ay ka qabto isfidinta Turkiga Suuriya Soomaaliya iyo Gaza oo xitaa rabay inuu ciidankiisa keeno aad uga walwalsan yahay iyo sidoo kale xiriirka Israa'iil ay doonayso inay la yeelato Somaliland si ay xuutiga wax uga qabato arrintiisa inta ayanu barnaamijku soo gabagabeynaa nabadgelyada Ilaahay dushiina ahaato. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.